saddex baa looga dhargaa hadal garawshiina looga dhargaa hilibna biyaa looga dhargaa hantina haween baa looga dhargaa hadal waxaa looga dhargaa in aad adigu fahamtid waxa lagu sheegayo ama qofka aad hadalka u sheegayso aad si wanaagsan u fahansiiso ayaa looga dhargaa hilibna biyaa looga dhargaaho haddii maanta oo idil aad hilib istiraahid cun biyo la'aan ma ka dhargaysid oo kaa degi maayo ilaa asagu ma laha dheecaan fara badan oo kuu sahlaya inaad maaragtay aad u cuntid hantina haween baa looga dhargaaho lacag kasta iyo hanti kasta oo aad leedahay haddii aanad xila lahayn ka dhargi maysid oo maxaa yeelay ninka ragga ahi had iyo jeer wuu u baahan yahay inuu helo haween uu ku nasto haddii uu xilo xalaala waayana waxaa macquul ah inuu macsiyaysto oo uu dhibaatooyin kale la yimaado saddexdaa ayaa looga dhargaa 3 qof baa adduunka laga waraystaa uurku ciroole adinku ciroole iyo ooga ku ciroole uurku cirooluhu waa qofka ama ha yaraada ama ha weynaadee cilmiga badan leh wax akhriska badan leh wax badanna ka og taariikhda yacni waa qof wax badan bartay waxa uu wax ka og yahay waxyaabo dhacay kumanaan sano maxaa yeelay wuu bartay waxaa la yidhaha uurku ciroole adinku cirooluhu waa qofka dalmarka ah ee meelo badan tegey indhihiisana wax ku soo arkay yacni waxyaabo kala duwan ayuu qofku arkayaa haddii uu deegaanka uu joogo uusan ku koobnaan ooga ku cirooluhuna waa qof shayba oo duqoobay oo in badan adduunka soo joogay xitaa haddii uusan halka u joogo uusan ka tegin uusan ka dhaqdhaqaaqin waxaa macquul ah dhacdooyin badan oo ka dhacay deegaankiisa inuu soo joogay 3 qof ayaa adduunka laga waraystaa iyo hoolihiisa 3 fakatay 3 ma gaarto been fakatay runi ma gaarto sir fakatana daacadnimo ma gaarto falaar fakatana cidi ma gaarto been fakatay runi ma gaarto haddii aad dadka been u sheegto oo la ogaaday inaad been sheegtay waxa aad sheegtana ay been yihiin waxaa macquul ah runta aad sheegayso ee dambe inay u baas noqoto waatii Soomaalidu oran jirtay beentaada hore runtaada dambe ayay u baas tahay sida awgeed been fakatay runi ma gaarto sir fakatayna daacadnimo ma gaarto oo waxa macquul ah adinkoo kooxa ama qof baa sir kugu qarsaday sirtaas haddii aad qof kale u sheegto ama qofkii nacabkiisa ama dad kale baad la wadaagto oo ay soo gaarto qofkan in sirtaasi ay ka fakatay oo adigu aad fakisay qofkaasi inaad daacad tahay ma ka dhaadhacsiin kartid sidaa awgeed sir fakatay daacadnimo ma gaarto falaar fakatana cidi ma gaarto falaarta haddii ay ka baxdo qaansada falaarta waad wada garanaysaan baasha sidan hubkii hore ee dadkii hore Soomaaliyeed ay ku dagaalami jireen way ama adduunkaba looga dagaalami jiray haddii ay fakato walaalka ama waalidkaaga haddii ay ku jeeday adiga gacantaadana ay ka fakatay wax kasto aad samayso ma gaari kartid qof kasta oo isku day kasta sameeyaa ma gaari karo halkii ay ku jeeday ayay abaaraysaa sidaa awgeed falaar fakatana cidi ma gaarto si aan muuqaaladan u soo badiyo like saar lana wadaaga saxaabtaada mahadsanid